الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaa la doortay inaan ka warramo jiilu saxaaba, facii saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waa fac runtii culimmadu waxay dhahdeen jiil fariid, waa fax ka gedisan nolosha dadkii soo maroo dhan. walidaalika baa culimmada taariikhda rag ka mida waxay tilmaamaan jiilu saxaaba hortoodna wax la mida lama arag bay idhaahdaan, gadaashoodna wax la mida lama arag. waxaana la tilmaamaya ilaa qiyaamu saaca uu dhacona cid la noocii inaanay soo maraynin. jiilkani muxuu dadka kale kaga gedisan yahay? koo waa jiil intiisa ugu badan tilmaamo ay ka siman yihiin leh. waa bulsho dhan oo tilmaamo ka siman, hadday tahay caqiidadooda saafiya, hadday tahay dhaqankooda iyo akhlaaqdoodoo dhammaystiran, hadday tahay ammaanada diinta iyo siday u xambaareen ay u soo gudbiyeen, hadday tahay qalbigooda iyo saafinimadiisa, hadday tahay go'aan qaadashadooda iyo wanaaggooda, hadday tahay jihaadkay islaamka u galeen. waa koox baa la yidhaahdaa halkay ka gaadhay diinta aan cidi ka gaadhin. waxaa la yidhaahdaa kooxdaasi ama ummaddaasi saxaabada ahayd, fardi ka mida hadduu taariikhda kala soo maro, qof ka midi taariikhda wakhtigaa waa la buunbuunin lahaa jiilku qofkaasi la noolaa. maalan cumar bin alkhataab hadduu casri dambe soo bixi lahaa isagoo cumara, waxaa la hubaa in taariikhda ay tilmaamaan lahayd wakhtigii uu cumar dunida hogaaminayay isagoo aan saxaabi ahayn. waxaa la mida bay leeyihin maalan dagaalyahanadu haddii khaalid soo bixi lahaa ama qacqaac ibnu camr soo bixi lahaa ama ragga la noocuu soo bixi lahaa. idan waa koox ka gedisan bay leeyihiin dunida kooxaha soo maray oo dhan, marka loo eego ballac ahaan intay tiradoodu leegtay iyo marka kor loo eego qimadooda inta ay gaadhsiisan tahay. jiilu saxaaba muxuu ku mudan yahay markaa? waxay yidhahdaan waa fac taariikhda ku suntan. muxuu ku suntan yahay? kow, cinda almuslimiin qiimayn gaara buu leeyahay, cinda culamaa'i taariikh qiimayn gaara buu leeyahay, bale waxay culammadu leeyihiin cinda allahi subxaanahu wa tacaala buu qiimayn gaara leeyahay. waa kooxda qura ee la tilmaami kara ilaahay agtiisa waxay ka yihiin. dadka inta soo hadhoo dhan waxaad odhan kartaa axsabuhu walaa uzakiiha cala allahi axada. hebel waxaan u malaynaya waa nin fiican, dadkaasi waa reer fiican, jiilkaasi waa jiil fiican, ilaahayna cidna u ammaani maynaad odhanaysaa. ama jiilu saxaaba kuwa maaha, iyaga lama yidhaahdo walaa uzakiiha cala allahi axadan. jiilu saxaaba ilaahay baa taskiyeeyey. waa kooxda qura inay dad fiican ahaayeen rabu samaawaati walardi uu ka markhaati kacay. walidaalik maalan haddaynu tusaalayaal qaadanno, ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay laqad radya allahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara facalima ma fii quluubihim faanzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. ilaahay wuxuu leeyahy ilaahay baa raalli ka noqday mu'miniintu markay geedka hoostiisa kugula beectamayeen. dadkan la leeyahy raallaa laga noqday ummadad intee le 1400 oo nin bay ahaayeen. 1400 oo saxaabo meel taagan ayaa ilaahay hadlaya subxaanahu wa tacaala, markaasuu leeyahy kuwa ilaahay baa raalli ka noqday. waa shahaada min allahi subxaanahu wa tacaala. innagu dadka markaynu qiimaynayno waxaynu ku qiimaynaa muuqaalkiisa, qofka ama cibaadadaynu ka aragno, deeqda aynu ka aragno, tala fiicnida aynu ka aragno, ama qulubtooda dadka ma ogin iyo waxa u qarsoon. qoladan see ilaahay muxuu leeyahay facalima maa fii quluubihim baa ilaahay leeyahy. iyaga ma aha daahirkoodaba wax la qiimaynaya. ilaahay wuxuu leeyahy waxaan ogahay waxa ku jira qalbiyadooda. sidaa awgeed baa faanzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. waxaa la mida markaynu eegno fii suurati tawba, ilaahay wuxuu leeyahy laqad taaba allahu cala alnabiy waalmuhaajiriina waalansaari aladiina itabacuuhu fi saacati alcusrati min bacdi ma kaada yaziiqu quluubu fariiqin minhum uma taaba calayhim inahu bihim ra'uufu raxiim. ilaahay waa ka toobad aqbalay baa la leeyahy nebiga iyo muhaajiriintii iyo ansaartii
raacay nebiga wakhtigii adkaaya cuslaa nebiga raacay wakhti ay u dhowaatay dadka barhkood quluubtoodu inay weecato oo dabeetana ilaahay sugay. dadka caynkan lagu sifaynaya waa kuwama waa ghaswatu tabuuk raggii galay. tabuuk yaa galay 30,000 maaha qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 maaha, waa 30,000. 30,000 ciidan oo meel galay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya kuwa ilaahay toobadooda waa aqbalay. idan jiilkani ama facakani waxay dad oo dhan kaga gadisan yihiin baynu leenahay oo taariikhda ugu suntan yihiin. waa dad miisaankooday alle ku leeyihiin agtiisaa la garanayaa, maaha cinda albashar, cinda allahi subxaanahu wa tacaala qiimaynta ay ku leeyihiin iyo waxay ka mudan yihiin baa la garan karaa. ama wixii iyaga ka dambeeyey waynu odhan karnaa dadkaasi dad fiican bay ahaayeen, ilaahay baa si xaqiiqadooda og. adigu waad qiimayn kartaa, qiimayntaada waxaad isku dududo waad tilmaamaysaa, laakiin dee lama mid aha kuwa ilaahay iyo rasuulkiisii qiimeeyeen. cid aad odhan karto jannay galaysaa ma jirto, dee kuwii ilaahay iyo rasuulkiisu iyagoo dhulka kor socda layidhi jannaa galaysaan mooyaane. sida ogeed ayaa axad culamaai taariikh baa wuxuu yidhaahdaa jiilu saxaaba mustawahan sare waxay ku gaadheen baan u malaynayaa buu yidhi 3 sababood. axad alculamaai lukhraana isna wuxuu leeyahay ana 3 kalaan u malaynaya, balaan wax ka tilmaamno. waxa uu tilmaamayaa qoraaga kani sababta koowaad ee jiilkan ay dadka uga gadisan yihiin war horta dee waa ilaahay baa doortay buu leeyahay oo u doortay inay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam u ahaadaan gargaarayaal. ilaahay baa doortay oo u doortay buu leeyahay bacda rasuulillaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam dadka ummadda diinta gaadhsiinaya inay noqdaan. oo ilaahay wuxuu leeyahy wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula, dadna cadaabi mayno inaanu rasuul usoo dirna mooyaane. nebi maxamedna waxaynu ognahay calayhi salaatu wasalaam 63 jir markuu marayay inuu dhintay. haddaa dadka dambe yaa u rasuulah, ilaahayna wuxuu leeyahy wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula. ammaanadaasi waxaa qaaday saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam. alasl alculamaa warithatu lambiyaa, laakiin kuwa kani waa kuwii intay nebiga ka soo rareen calayhi salaatu wasalaam bini aadamka soo gaadhsiiyey. waxaad garan kartaa cidda ilaahay ammaanadaa ku aaminay ee ciddii koowaad ee nebi maxamed ka qaaday inaanay dad beenaalayaala iyo dad wax khiyaameeya iyo nooca kan inaanay marnaba noqonaynin. sabab labaad bay tilmaamaan oo jiilkani ama facakani uu dadka kaleo dhan kaga gadisan yahay. waxay yidhahdaan wuxuu kaga gadisan yahay taraakum alkhibraat bay yidhahdaan. waa fac ka khibrad gadisan dunida inteeda kale. maxaynu uga jeednaa khibradda tan? kow waxaynu leenahay waxay arkeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. innagu agteenna waxa ku weyn qofka muslimka intuu seexda yidhaahdaa nebigii baa riyo ku arka. agteenna wuu ku weyn yahay. nebigaana weyneeyey calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamay shaydaanku iskuma kay matalo. qofkii riyo igu arkaa wuxuu la mid yahay inuu ay arkoo kale. ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي من رآني في المنام فصيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. كل هذه الأحاديث وبخاري ورينيو waxau nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ninka riyada igu arkaa ee ku arka sifadiisii uu lahaa. waa sababta aynu u baranno shamaa'ilu muxamed calayhi salaatu wasalaam. nebiga dherarkiisii iyo midabkiisii iyo ballaciisii iyo timihiisii iyo waxaasaa kutub alxadiis lagu dhigtaa. maxaad u dhiganaysaa si aanu kaa qaldamin hadhow riyada markaad aragto haddaad calaa suuratihi ku aragto fa huwa shaytaanku iskuma tamatulo. ama haddaad dee nin madoowo meel maraya aragto inaan rasuulka yahay waa la garanayaa, ilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin madow ma ahaynin. idan sifaadkiisii haddaad ku aragtay waxaad la mid tahay inaad aragto. innaga markaa agteenna waxa weyn ninka intuu seexdo ilaahay waafajiyo inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam riyo ku arko. ka waranka maalin walba 10 jeer arkaya uu ka soo horbaxayay isagoo rumaysan oo muslima oo ilaahay yaqaana, maalin walba ka soo horbaxaya ee xaqiiqatan u arkayay.
marka leena xaqiiqatan u arkay wax badan baa ku hoos ladhan marka laan wax ka tilmaamay qodobka labaad waxaynu tilmaamaynaa ay saxaabadu dadka kaga gadisay waxay ahaayeen dad quraanka la nool erayga u fiirso inagu waxaynu maqalnaa asbaab nuzuul aayadatani waxaa dhaco waxaasay ku soo degtay waxaa dhaco saasay ku soo degtay laakiin iyagu way la noolaayeen waxaad sawirataa gabadhii muslimadda ahayd ee odaygeedii muranku dhex maray ee uu dhihaaray ee ilaahay u ashtakootay ee ilaahay ashtakadeedii ka soo jawaabay gabadhaasi quraanka markay akhriyayso siday u akhriyayso iyadu ku soo degay iyada ashtakada samaysay dabeetana ilaahay iyadu qadiyadeedii ka warramay qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir gabadhaas maxay dareemaysaa marka qad sami'a iyadu akhriyayso ay salaad ku tukanayso wuu kala gadisay adiga in lagaaga sheekeeyo gabadh bay ninkeedii isqabteen dabeetana quraan baa ku soo degay iyo inay taagan tahay tii quraanku ku soo dego iyadoo akhriyayso oo iyadu ilaahay u ashtakootay oo dabeetana ashtakadeeda ilaahay aqbalay waxa la yiraahdaa Umar bin al-Khattab oo ciidan soconaya meel soo maray dabeetana islaamku ku soo baxay islaantu uu isla taagay markaasay wuxuu sheegtay warkiisii buu dhageystay warkeedii markaasay ku yiraahdeen habasta أمير المؤمنين بيله حبست الناس على هذه العجوزة دتكي ما هبرت ما دو جوجيسه يعني دتكي وحي النعمة يستين دتكي لما يسعون يا إسلام لهذا الكذا عمر سوتاجي عمر باو حكويري ويلك ما قلت أنت نتيتهاي مرقسال لي مايا مرقسولي واتي إلهي فوق 7 سماوات اشتكد ذاك أقبلي وخولة بنت ثعلب بولي وقبل يكسو دكتي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يكسو دكتي إلهي من خد دارتي بولي هدي إلا إيا عاوي ترى هذا تاقنو صلاة وحانا هين وقمر دقاقين ورو تاقنان لها بولي يعني مركا إنه قرآن كان مفهوم كان مركا إنه قول لك قف والبا إلا القرآن كان مالع لكم يسو دقين الرقان يدو مركا ميشي تشوكو كسو دقين إياك أمل لغو السحي أمل لغو التوجيهين أموح لغو التلمامي يسألونك عن الأنفال قل الأنفال وكوان تاقن إذا القرآن هذا هو آخريسه يرجو كسر دقيقة تاجنا يجي إلى هيك ورمي إسكونا دن نقول ميسان إسكوسينا ودريمي ميسان أرنك صدحات أو شخص التلمام يوحويان النبي عليه الصلاة والسلام غيب بدن يوح معجزات يكموك ورمي إنك بعد السنة دير علماء الحديث كساروريان مركو صامرو كتب صامرو عين كاسبوين سو غاري وركاسين انغو مقال لكن يغو وي تاغنايين وهي علماء يراهدان اما علماء بان كا كخيو نبي الله موسى عليه السلام او الهي وكعي سبحانه وتعالى يا الهي لا هدليو ايات تلكي وحي عابدين دبي دبتنا وحا لسوسيه كتاب الواح قران waxa loo sheego ilaahay uga warramay nabi Muuse dadkii inay caabudeen maxay dibi inay caabudeen wuu caroodo uu soo noqday markuu laakiin arkay waaqici nimankii muuminiinta uu ka tagay oo dib caabudaya markuu arkay looxantii ilaahay wuxuu ku soo qoray si tuu dhulka ku dhuftay markaas ay kala jabtay nabiga alayhi salaatu wasalaam taaliqiyo wuxuu yiri laysa al-khabaru kal muayana bu nabigu warku aragtida la mid ma habu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam nabi Muuse warba loo sheegay dadkii way caabudeen dibi looxantiisa iska sitay markaa ma jabinin laakiin markuu isa soo taagay indhaha saaray iyagoo hortiisa dibi ku caabudaya arag daraadeed markaas uu looxi ka jabay markaas uu nabigu leeyahay laysa al-khabaru kal muayana maxaan uga dan leenay markaa mucjisaadka la inooga warramayo wax dhan way taagnaayeen inaga waxa la inoo sheegay inay quraysh iska hor yimaadeen iyaga ka soo dayaxa la kala dilaacay ka waran dayaxo laba noqday ninkii taagnaa dayaxo laba dhambala isagu labadiisa indhood ku arkay ka waran ninkii taagnaa isagoo beershiyo boqorkii joogay uu la hadlay caamilkiisii Yemen jooga oo ku yiri ninba goboladaada ka soo baxay aniga waraaqii soo diray waxaas ma dhici kartay ii keen ee labada nin soo diray
labadii nin nabi maxamed u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam iyagoo raba inay u sheegaan boqorkii kisra ku doonaya raac. dabeetana wuxuu yidhi bal noqdo oo ii kaalaya aroorta. way ku soo noqdeen. markay subaxi u yimaadeen buu wuxuu ku yidhi kii idin soo diray ku noqda oo waxa u sheegtaan ina rabbii qad qatala rabbahu leyla, rabbigay inuu rabbigiisii xalay dilay. kisrahay ku lahaa ka yaman la soo hadlay yidhi waxaad kii yamaneed u sheegtaa xalaydan aan joogno aniga rabbigay inuu isaga rabbigiisii dilay. boqorkii kisra nafsi leyla baa la dilay oo kisra dhintay. ka warran ninka saxaabigee joogay ama saxaabada arkaysay nabi maxamed oo khudbadaynayo geed dhinaciisa taaganiyo ooyayo. geedku ka hor khudbadayn jiray waagii hore intaan loo samaynin mimbarka, oo ka dhinac ooyayo ay maqlayaan dadku xaniin iljidic dhammaantood ay maqlayaan. ka warran nabiga calayhi salaatu wasalaam ay dhex taagnaayeen oo intay biyo waayaan gacantiisa madibad yar u geliya, weel yar biyaa gacanta u geliya, oo dabeetana ay arkayaan farihiisoo biyo ka dareerayaan oo ku weysaysanayaan. 80 nin baa ka weysaysanaya, mararka qaarkood 300 oo nin baa ka cabay ama ka weysays. ka warran yani nimanka soo taagna waxaas, nimanka soo taagna inay jibriil arkaan intuu nabiga u yimi oo su'aalo weydiiyay oo caynkan oo ay yidhaahdeen nin aanan hore u arki jirin oo caynkaasaan markuu baxay uu nabigu ku yidhi ma garanaysaan kan idinka tegey? ay yidhaahdeen maya. uu yidhi jibriil oo diinta idin baraya buu ahaa. idan saxaabadaas dadka waxay kaga gadisnaayeen iyagu diintan bay la noolaayeen. qaarkood iyagoo dhulka kor marayaa la yidhi jannadaad gelaysaa. dunidani intay cidhiidhi ku noqonaysaa ninka og inuu janno kusii socdaa. haddaad hubto caawa marka naftu kaa baxdo cirkan iyo dhulkan meel ka weyn inaad helayso, tambariiskeedu minkuuba dhadhami lahaa, ma qiimo kula leeyihin. ragga iyagoo halkan taagtaagan la yidhi jannaa leedihin, jannaa gelaysaan, oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la jooga. idan ayuha alaxiba, wuxuu sheekhaasi tilmaamaya uu leeyahay dadka kani waxay ahayn fac ilaahay doortay, waxay ahayn fac qur-aanka la noolaaday iyo soo degistiisii, waxay ahaayeen buu leeyahay fac dee aliya rasuulkiisu ka warrameen. ina khayrakum qarnii buu nabi maxamed leeyahay, dadba waxa u khayr badan qarnigayga kan, uma aladiina yaluunahum. waxau nabigu tilmaamaya laa tasubuu asxaabi, war saxaabadayda waxa ka sheegina, war saxaabadayda ha maagina. ilaahay baan ku dhaartay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, buurta uxudoo dahaba in leeg haddaa bixisaan mudkood, waa 2 sacab, mud uu midkood bixiyey ama nisfu mud uu bixiyey gaadhi maysaan. waayo nisfu mudkaasi diintan dhan baa ku kacday. adigu haddaad maanta buur dahaba bixiso maxaad beddelaysaa? diintan dhan ee ilaa qiyaamu saaca taagnaan doontaa mud iyo nusmud ay nimankani bixiyeen bay ku taagantay. marka laga yimaado dhiiggoodii iyo naftoodii, hantidooday ku taagantay. hantidooduna waa maxay? waxay ahaayeen mud iyo nusmud. hadday qarniga noolaan lahaayeen waxaynu odhan lahayn waa dad caydho meel degane waxaa loo ururiyaynu inagoo odhan lahayn, markaad noloshooda la sifeeyo siday ahayd. saa daraaddeed jiilkaasi jiil mudan buu ahaa. ilaahayna markuu leeyahy kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas, iyagaa marka hore lala hadlaya, iyagaa kow ka ah. waxaa kugu filan ilaahay qur-aanka ku leeyahy والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كوي صهر مري الرئي مهاجرين يا أنصار هيا وحي الراعي إلهي برا لك النقضي بالليل يقول الله يرى لك يهين جنة لو ديارية ما إلهي هو مرخاتك عيا أي كواريا كور مركا إلهي القرآن كور ما يقال لي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأحبة
حلنا جيل كاس وجيل إلهي دورتي ضد كان كم مضن مدينة هانو قولي كجم مدين ما التاريخ ده بني آدم كقري سينا يهين ضد كجدسن نوعيات الدنيا ده صامرة يوردن وحبان كتلمامي هذا بقى إسلام نمضو ما يقول قولي كحدناي معناه ما هو يعني كان النبي محمد أرجع إسلام متاعي كرايه أما الدين تمرق ما يسوى ما يا هل كي جارين ومن لجاري كرين لكن ومثل وتلمام لأديك سنة يوقف ورباينه جاره والله جاي بفرد يلا بيصدح جارين أدركته لكن بلشة دي ترى لك وطيل لك يدو ما تشريس لكن إلهي النعمة دي سقف كيد داله وجاري كرا وحيا بقاركم هذا بالدين تتري لو قمت لك قالين نلاش النبي قال قرأ إني شوكته وقرن كرنا إن قفك هذا الشيء خاك وحكور لي كو تبارك وتري ونقضى نندق سيا ووحكستكو سيا ونقضى ننجسيا ودفت مركو قبضة الدفاع أو نقضى نن عقل بدن وهو حد باهتو كالا تلين كرا أو نقضى الدين نكو قدري يعني وح الله باين هذا الشعلان السوسي كما الدنبيسة وحان الله باين كور رادين دونه صغير عادية هذا ما لين سنك النبي محمد شيخ وها مركا عليه الصلاة والسلام صحابته ضد بكيو جيس السنة ودق بدنا وفعنا وطلرونا وعين كان إلهي بدتك كده دورتي أياد معلن كودية أيها معلن كودية تببره هودية ساسيا وجدت كيني كجد السنان دونان ومسألة معقولة إلا الشيخ خلق من اللي هي ما النبي محمد عليه الصلاة والسلام لكن تام معناها يدوم معها إن إسلام لماذا للسوء علين كريم إن القرآن كي السنة الله طبق كريم إن حتى إلهي وينود شيء اللي قاعد كريم مرنا بمعناها يدوم معها وإلا ده دين تبين نقطتين دين تيودم بيسا إلا آخر الزمان كالله طلق عليه هذا بوحين سويديني نمر كأنه كان مادنا قمة الصلاة أن مادنا هلك هذا وهو سيء وحكينا يني هلك هو سجد عويان حيتي وهاي علماء قارلين لبس سببات ما صدق سببات بكيني مشاني نجارة كو مدي وحويان بيلين مصدر التلقي حقي وحكا قادنيين dadkaasi waxay wax ka qaateen il saafiya waan aje iyo dhooqa iyo dhibtoona lahayn il biyood oo saafiya macnaheedu ma waxa weeyaan wax kale aanay haysanin maya dunida falsafada waa yaaleen falsafadii xadaaradii roomaniska taalay xadaaradii griiga joogtay xadaaradii beershiyanka xadaaradii hindida xadaaradii jayniska dunidu ma ahayn saadadka badmoodayaan meel madow oo imkoon iftiima ahayn dunidu waligeed ba afkaartan iyo filosofiyada maanta ugu waaweyn wali layna daba wadaa aristotle iyo Platon iyo kuwa la sheegay de waraga horewn ma kuwa imika jooga dunida uqul iyo afkaar iyo aaraa'iba way taal laakiin nabi maxamed markuu rabbeynay wuxuu ku rabbeeyay ilaahay kaliya kala kulmaan laba wixii ku saabsan caqiido iyo values qiyam iyo tashriicina rabbi kala kulmaan wixii maado iyo idaaraat iyo aqoon adduunyo ku saabsanna bini aadamku wadaagayeen aadana kala ka qaata wixii la dheer yahay taasa waxay keentay markay joogto mas'alada value-ga iyo aqaa'ida iyo sharaa'icda ku saabsan wuxuu nabigu arkay maalin عمر بن الخطاب أن يهودي يدوا بالوراق يسوق كتاب كينا وحيابه ونكسره كقران تبى ترى وراق بو مدو قرأ رواية كقاركودنا وحيلين وراق بو هلا عمر وراق آخر السنة يبو النبي وارك أنا سؤال محي واحد آخر يسا مركز سوح يدوا إن قلنا يهودي كتب كودي ويا وحكم ده المتهوكون فيها من أبو كويل وأدنى مياد وررسن تيبو كويل يقوانو قوا وررسيني أدنى متحير أدنى مياد وررسن تيبو كويل وروحان دين لئيمي بو النبي قولي بيضاء نقية دين بان دين لئيمي عد وصافية
ilaahay baan ku dhaartay buu nabigu yidhi hadduu nebi muuse noolaan lahaa kitaabkii towraad oo la qalqalday oo la inxiraafiye iska dhaaf nebi muuse hadduu noolaan lahaayo maanta joogi lahaa uma bannaanaateen inuu aniga ay raaca mooyaane wax kale buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam walidaalika buu nebigu wuxuu tilmaamayaa nebi baa soo degi doona isaga dabadi nabiyullaahi ciise oo cirka la qabadsiiyaa iman doona laakiin muxuu raaci doonaa sharciga nebi maxamed buu raacaya uma bannaana buu nebigu leeyahay hadduu xataa joogo muuse maa xalla lahu ilaa an yatabicanii aniga inuu iraaco mooyaane wax cid kale uma bannaanayn buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam su-aashu waxay tahay markaa innagu xaggaynu wax ka qaadanaa manaahijteenna cilmiyeed iyo aqoomeed iyo xaggaynu ka keenna waxaynu leenahay thaqaafaadkeennu waxaynu qur-aanka ka qaadanaaba yar waxa ugu badan waxaynu ka qaadanay maxay cid kaleaynu ka qaadan reer bari iyo reer galbeed iyo thaqaafaadka dunida yaalla xadaaraadka kale iyo aqoontoodii waxaasaynu isku rarray haddaynu rabno markaa meeshoodiioo kale inaynu ku dhowaanno waxaynu u baahanay manaahijteenna inaynu dib u safayno min ayna natalaqa xaggaynu kala kulmaynaa diinka xaggaynu caqiidada ka qaadanaynaa xaggaynu valuega ka qaadanaynaa waxaynu kaloo u baahanay xataa waxaynu akhrinayno xataa turaadka islaamiga ayaa tasfiya u baahan israa'iiliyaad badan iyo wax daciifa iyo khuraafaad badan baa la qoray xataa kaas baynu u baahanay inaynu hubinno oo ku hubinno ma yahay qur-aankii alla soo dejiyey tafsiirkiisani tafsiir saxa ma yahay waxaanaad sheegaysaa xadiidkii nebi maxamed oo saxiixa ma yahay mise wax wadaad iska sheegay uun idan awal khutwa aynu u baahanay waxa weeyaan meeshaynu wax ka qaadanaynaa inay saafi noqoto haaniyan mar labaad waxaynu leenahay oo inagu meeshoodii u gaari weynay manhaju talaqigaa kala gedisan iyagu waxay u qaadanayeen inuu yahay maxay camalkoodii yoomiga ahaa that means wuxuu ahaa timetablekii maalmeed ay ku dhaqmayeen sidaa awgeed iskumabay badin jirin waa kii laga warinayo inuu lahayo midkaayo 10 aayadood baanu qaadanaa 10 aayadood baanu xifdinaa oo macnahooda barannaa oo ku dhaqannaa markaasaanu nebiga ku soo noqonnaa calayhi salaatu wasalaam marka iyagu qaabkay wax u barteen wuxuu ahaa qaab camaliya waxaan uu baranayaa inuu nolosha ka mid noqdo practical noqdo innaguna badanaa waxaynu u barannaa qaab lilistimtaac iyo lithaqaafa macluumaadkaaga inaad biiriso badisid in la yidhaahdo waa doctor hebel iyo waa magister hebel buu qaatay iyo yacni macluum garashadaadu iyo wax madaxaaga ku jira un inay bataan saa awgeed waad soo fadhiisan dariska waad dhegaysan waad iska tegi waad soo fadhiisan waad dhegaysan haantaadaad dhaansan laakiin dhaqankaagu alla ha u sahlo waxaanaad guratay miyuu yahay mise tii tolkaa iyo reerkiinaad ku dhaqmaysaa tii dowladdiina iyo wixiinaad ku dhaqmaysaa tii bulshadiina iyo waxay weynaynayeen baad ku dhaqmaysaa mise waxaanaad barataad ku dhaqmaysaa that's the question inaga weli taagan haddiiba macluumadaad qaadatay macluumad saxa tahay practical ma isu beddeshaa iyaga macluumadooduna saafi bay ahayd oo nebi maxamed afkiisay ka qaadayeen calayhi salaatu wasalaam marka labaadna wuxuu ahaa manhajkoodu manhaju litanfiid talaqigoodu wuxuu ahaa inay fuliyaan midkoodna markaa awaamirta iskuma badinaynin waayo wuxuu arkayay wuxuu fulinaya inay tahay masalada saddexaad waxay ku tilmaamaan waxay idhahdeen iyaga iyo inagu waxaynu ku kala gedisanay iyagu qofkoodu markuu islaamo wixii ka horreeyo dhan shakuu ka qabay saa daraaddeed wax kasta uu jaahiliyadiisii samayn jiray wuu iska hubin jiray in islaamka la ogolyahay inaan la ogolayn ilaahay rasuulkiisa saas sax ma tahay saama la ogolyahay inaguna wixiina waad baranaysaa waxaaga horena waad ku raraanaysaa iyagu waxay leeyihin wuxuu ahaa koodu التخلي قبل التحلي bay yidhaahdaan inuu iska rogo wuxuu sitay oo dhan inta aanu marada nadiifta gashan haddaad dhar cusub soo qaadato maxaad u baahantahay haddaad maanta oo dhan soo shaqaynaysay oo aad xamaal ahayd ama waddada dhisaysay ama kan dee boodh iyo siiga midhan baa tahay laba dharoo cusub markaad soo iibsato
ma adigoo waxaagii sitaad ku jufi mise horta intaad xamaamka gashaad intaad isnadiifiso ayaad dharkaaga fiican xidhan doontaa logigu wuxuu keenayaa intaad isnadiifiso inaad maxay dharkaaga kala xidhato saasay ahaayeen dad minis markay islaamaan wixii hore ay haystay way ka tegayeen waxay u baxayeen inay qaataan waxa cusub ee diintu ay sheegaysay taasaa waxay ka dhigtay jiil ama fac ama koox taariikhda bini aadamka mudnaan gaara ku leh tusaalayaal baan idin siinaya haddaba mudnaantooda tilmaamayay dunidaynu maanta joogna waxaa la yaqaanaa ama sidii ibnu khalduun iyo ay qori jireen waxaa la og yahay dadka xadaaraadka maadiga ee sarreeya leh inta badan inay dadka kala jebiyaan mentale u jebiyaan saxaabadii nebi maxamed waxay iyagu isu arkayeen maadaama macallinkooduna nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam warkay xambaarsayiin ay rumaysayiin inuu ilaahay toos uga yimi dadka inta hadhay inay iyagu macallin ugu yihiin baabkan waxay rumaysanaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam afkiisa inay ka qaadeen warkanina inuu ilaahay ka yimi saa daraaddeed dadka inta kale waxay u arkayeen marka ay joogto valueska iyo caqaa'idda iyo sharciga markay joogto inay iyagu yihiin dadkii dunida waxbari lahaa markay see birta iyo maadada iyo waxa kala joogto inay dadka kala mid yihiin oo ay ka qaadanayaan markay muslimiintu dagaalada bilaabeen futuuxaadkoodii ay Persia istileen Persia waa dawlad qadiima waa dawlad muddo soo jirtay waa dawladii jabisay markaa dawladii Romanska ahayd waa dawlad culture maamul leh oo kala dambeyn leh oo ciidamo leh waa dawlad xadaara leh oo thaqaafa leh waa dawlad qaab maamul leh muslimiinta markay dagaalku cabaar socday ay waxay damceen inay wada hadal la furo wada hadalkii waxay codsadeen in loo soo diro cid muslimiinta kamid ay wada hadlaan ninkii boqorka markaa haystay ee ciidamadan hogaaminaya wuxuu ku talagalay nimankan inuu jabiyo maskax ahaan markaa meel buu goglay waxaa la dhigay kaarbadiyada cascas dabeetana sariirtii boqortooyadana meel baa la dhigay sariirta boqortooyadu fuulay saddex saxaabi mid baa loo soo diray markaasuu la hadlay wuu noqday warbal mid kale soo dir buu yiri mid labaad baa loo soo diray wuu noqday warbal mid kale soo dir buu yiri mid saddexaad baa loo soo diray saddex saxaabi baa kulba mid u yimi Xudayfa iyo Mughira ibn Shu'ba iyo Rabi'i ibn Amir saddexdaba saddex qiso cajiib oo kala kulmay laakiin mid uun baan u socdaa Rabi'i ibn Amir baa u yimi waa nin inta dagaal ku soo jiray maryaha haylan iska wata faras yaroo gaaban wata hubkiisa iska xidhan soo galay dabeetana waxay yiraahdeen hubka dhig madaxda loolama tagay de madaxda anigu uma imanay isaga yeedhay buu yiri haddaan rabtaana sayidaan ugu tagay haddii kalena iska noqon waa loo sheego waxa la yidhi ninkay saasuu leeyahay bal soo daaya buu yiri wuu soo socday kaarbadku iskaga soo dul socday faraskiisa yaraa ee gaabnaa dabeetana barkimooyinka ka mid ku xidha dabeetana wuu soo galay markuu yimi ayuu ninkani wuxuu ka fakarayaa wuxuu rabaa inuu mentally ninkan jabiyo war haddii maxaa idin soo saaray buu leeyahay haddii abaar iyo dhul aan waxba oolin iyo kana ka timaadeen xoolaanu idin siinaynaa wax baanu idin qabanayna kan baanu idin qabanayna kan baa ee wadankiina ku noqda buu tilmaamaya marka maxaa idin soo saaray baa la weydiiyey Rabi'i ibn Amir wuxuu leeyahay Allahu ibta'athana لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة وحلي إلهي ما نسوي بحيي وحانا الرب النسوي بحيي dadka ciidu doonayna anu ka saarno adoonsiga dadku is adoonsadaan oo freedom freehet dadka inaan xorriyad u saarno dadka inay xor ka noqdaan bini aadamku inaanu is adoonsanin bana loo soo bixiyay buu yiri ilaahay oo qura in dadku adoomo u wada noqdo waxaan u soo baxnay buu yiri inaanu dulmiga diimuhu dadka ku hayaan ka saarno cadaaladda islaamka u bixino waxaan u soo baxnay buu leeyahay cidhiidhiga adduunyo inaanu idinka saarno waa adduunyada ballaceeda iyo aakhirada ballaceeda idin geeyay nin kale cidhiidhi adduunyaanka ha saaraya laba goo yar yar buu sitaa iyo maxay
faras yaroo gaaban u ustaa ninkuu cidhiidhiga adduunyo ka saarayaana waa ninka kan meel kasta gogoladay laakiin wuxuu arkayaa bimanduurihi maca haada waxaasoo dhan uu haysto inuu cidhiidhi ku nooliyey marka waxaan kaa saarayaa buu leeyahy cidhiidhiga adduun oo waxaan kuu saarayaa maxay ilaa sicatiha faariqa maadiga u dhexeeya intuu leekaa laba masalaan idiin tilmaami midi waxa weeyaan axadu saxaaba qolaa daqiiq yaroo farsamaysan bay cuneen markaasaa wax saxaabaa la weydiiyey sidaa u cuni jirteen idinku horta daqiiqda dabeetana wuxuu ku yidhi maa ra'aa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam annaqiya min xiina ibtacahahu allahu xataa qabada ilaahay rasuulkiisu daqiiqdan saafiga ah yacni markii la tumay la farsameeyey deetana la shaandheeyey deetana budada qudha noqotay daqiiqdaa budadee keliya nebi maxamed ishiisaba ma saarin buu yidhi sidii ilaahay uu soo diray daqiiq saafiyaba nebi maxamed ma arag markaasay waxay ku yidhaahdeen oo miyadan cahdigii nebiga munkhal miyadan haysan buu yidhi munkhalku waa shaandhada baashan wax lagu shaandheeyo miyadan manaakhil haysan baa la weydiiyey markaasuu wuxuu ku yidhi maa ra'aa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam munkhala nebi maxamed ba shaandha ma arag haddaba waa shaandhadaa yar wax ka weyndaaye shaandhaba nebi maxamed ma arag buu ku yidhi markaasaa taabicigii wuxuu yidhi oo haddaasaa daqiiqda u cuni jirteen sideeba wuxuu u samaysan jirteen nimankiinan kule shaandhaba maanaan haysan jirin markaasuu wuxuu yidhi shaciirka intaanu tunno oo dabeetana haadinoo afuufno sidii reer baadiyaheenuun fo intaanu nidhaahno ayuunbaa wixii baalina duulaan wixii soo hadhana waa sariid baanu ka dhigan jirno dee waa cuni jirnay buu ku yidhi yacni raggan dunida sicadeeda dadka u sheegaya shaandhada daqiiqda lagu shaandhaysta maanan arag buu leeyahy alimaam ibnu jariir atabari wuxuu soo aroorinaya waxaa ka soo naqlinaya sheekh الندوي baa ibnu jariir atabari wuxuu ka soo naqlinayaa muslimiintu markay madaa'in furteen madaa'in waa caasimadii markaa looga talin jiray dowladdii beershiya la odhan jiray caasimadda markay furteen gurigii boqortooyada qusuurta markay soo galeen dee wixii alaab taallay ka kaalay waxay arkeen buu yidhi daqiiq noocyaadkaas ah oo si khafiifa loo sameeyo meel saaran dabeetana manaadiil bay moodeen buu leey faraha iska mariyeen waa saxaabadii wuxuu tilmaamayaa yacni faahashan farsamada lagu sameeyey inaan weligoodba arag saa daraaddeed in iyagu fara iska maris moodayeen wuxuuna fara iska maris maahe waa maxay waa cunno ragga sidaa u soo galeen meeshaasi caynkaa ahayd haddana waxay rumaysanaayeen inay iyagu usaatidada yihiin inay iyagu kuwii mabaadi'da iyo caqaa'idda iyo diimaha sheegaya inay iyagu yihiin ama innaga maanta markaynu aragnay muctiyaat alxadaara algharbiya technologygan galbeedka yaalla waxaynu bilownay oo su-aashan ay dib u noqotay sidee baynu manduumadeennii valueskii qiyamkii iyo caqaa'iddii wixii aynu sharcigeen iyo wixii aynu sidanoo dhan see baynu u waafajin karnaa tan oo u raacsiin karnaa innagu markaa iyaga wax bari mayno ee teeni baynu rabnaa inaynu idhaahno qiraa'a jadiida waxaynu u baahanay inaynu dib u akhrino oo muctiyaadka xadaariga ee maanta soconaya inaynu raacsiino naska sharciga inaynu waxoogaa tabriiraada u raadino meel kale ka saarno inaynu idhaahno nusuusta sharciga waa iska yaro adag tahay maqaasidaynu isticmaalaynaa maqaasidu shariica iyo almasaalix alcaama iyo waa baabkaasoo nusuusta ajzaada ah iyaga waa ma qaadan karayno waayo inagu qalbiyan baynu jabnay imbihaar baynugu dhacay nimankaa cirka qabtay waxaynu isniin wax walba cirkay ka joogaan maynan garanin inay bini aadam iyo xaggana kor u socon karaan xaggana hoos u socon karaan dhanna hoos buu dunidu u socotaa oo maanta dunida valueska iyo qiyamka iyo caqaa'iddu hoos bay u socdaan aqoon-yahanka dunida waaweyn in badanoo ka mid ah isku waafaqsan in hoos loo socdo laakiin technologygu kor buu socdaa technologygu aad buu kor ugu socdaa oo de hadda waxay ka warramayaan dagaalada cusub ee dhowaan la rajaynaya in la galo inaan bini aadanba geli doonin hadday dayaarad tahay iyo hadday taangi tahay iyo hadday askari tahayba man made waxay inay dagaalami doonaan aan dadku goobta tegi doonin
dayaaradda ku garaacaysa wax cidimo wadato taangiga ka dulboodaya cidimo wadato madfaca soo dhacaya cidimo wadato askarigan xabadda soo riday waa robot oo cidimo wado technology halkaas inuu bini aadamku guriyaha fadhiyo cirkana ka dagaalamo wadan kalena aad dumisid gurigaagana aad fadhidid yes technology halkaas uu socdaa trendkaas uu socdaa wax walba in waxaynu ku naqaanay iska bedelaan laakiin aqaayda iyo values iyo qiyamka iyo akhlaaqiyadka iyo dhaqanku hoos buu sii socdaa bini aadamka iyo qiimayntiisu way sii lumaysaa waxba eegin dasaatiirta waxa ku qoran waxa lagu dhaqmaya eeg dasaatiirta waxa ku qoran bugaagta waxa ku qoran bay la mid yihiin wax waliba waxay u sii socdaan hoos laakiin inagu materialka markaynu munbahar ku noqonnay inferiority complex baa inagu dhacay waynu nafsiyan baynu u jabnay dabeetana inuu ceeb yahay waxaynu sidanay baynu dareennay ay su'aalaadka yurub la isweydiiyay waxa kamid ah masquulaha ku tukan karaayo meelama yani ceeb baa dareemaysaaba in lagu arko adoo forforsanaya waa ka khajilaysaa waad ka khajilaysaa marka ninka inuu salaad ilaahay u tukado ka khajilaya mid kale wax gaarsiinaya ninka inuu ilaahay u tukado ay ku dhib badan tahay ka khajilsani ma cid kale wuxuu sheegi karaa ma cid kale wax gaarsiin karaya waxaynu raadinaynaa qatciyaadkii sharciga waxaynu raadinaynaa tabriiraad kale iyo meel kale aynu ka bixin karno si kale aynu wax u dhigi karno soo duuduuba waxaynu leenahay waxay soo naqliyaan ibn taymiya ibn al-qayyim iyo kitaabadoodan ay nimanka kristanka kula doodayaan ama diimooda kaga waramayaan iyagoo dooda qole la galayo ay qolada yuhuudeed leeyihiin waxaanu ama ahlu kitaabku ay leeyihiin waxaanu ictiraafsanay maxamed inuu nabi ahaa laakiin daanana nabi carbeed u ahaa yani markay jabeen waxay qaateen inay aqbalaan xadaaradan dhan iyo dawladan weyn iyo wax kan malaa nin beenaala dadkuna dhan ma daba socdaane heedaanina ninkani xaq buu ahaa laakiin wuxuu xaq u ahaa un carab buu ahaa nabi carabta loo soo diray annaguna kaayagii baanu haysanaynaa idinkuna kiina ummad kastoo jabtaa saasay u fakartaa waxaan isweydiinaynaa markaa maxaa saxaabada ictizaaz maxaa nooleeyey waxa nooleeyey nabcigay ka cabeen baa saafi ahaa waa marka koowaad ilaahay iyo rasuulkiisay toos uga cabeen waxay u sheegeen waa marka labaad ee diinta ay baranayeen inay ku dhaqmaan u baranayeen waa marka saddexaad waxaynu leenahay ilaahay iyo rasuulkiisu waxay sheegaan bay yaqiin ahaan run u haysteen hal tusaale aan siiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay habeen maka ka qaaday dabeetana madiina la geeyey madiina maaha waxaa la geeyey bayt almaqdis baa laga dheelmiyo waxa la qabadsiiyey maxay cirka waa la soo celiyey wuu yimi qoraysh baa la kulantay haye bay dhan bal saakana waran umuu sheegin tii sare ee wuxuu u sheegay tii soke wuxuu yidhi xalay bayt almaqdis baan togo ka soo noqday iyagu ku jeesjeesay yidhahdeen oo dadka ma u sheegi karaysaa haa buu yidhi waa la isugu yimi oo nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xalay maalinta maka laygeeyey bayt almaqdis baan ka soo noqday su-aalay weydiiyeen oo ilaahay baa sida tv-ga u hordhigay uu uga jawaabay waxaasoo dhan uma socdo abibakaroo meel joogaa loo tegey oo la rabo in lagu jeeseeso saaxiibkaa wuxuu maanta sheegtay ma ogtahay baa la yidhi markaasuu yidhi muxuu yidhi xalay baa laygeeyey mako laygeeyey bayt almaqdiso haddana waa lay soo celiyey lain kaana qaalahu buu yidhi sidaa miyuu yidhi haabay yidhaaheen hadday dhab tahay warkiinaasi buu leeyahay hadday dhab tahay inuu yidhi run buu sheegay waayo cirkaa layga soo waxyoodaa baan ka rumaystaa buu yidhi ma waxaanan ka rumaysanaynin meel yaroo dhulka ku taallu ka soo noqday ayaan ka rumaysan waxaan ka rumaystaa buu leeyahay cirka looga soo waxyoodo adna waxaad ka warramaysaa magaalo dhulka ku taalluu tegay oo ka soo noqday idan yaqiintaasay qabeen waxaan ku soo koobayaa markaa saxaabadu waa jiil taariikhda ku weyn islaamnimada ku weyn cinda allahi ku weyn nusuus qur'aan iyo xadiis ay sheegayaan in badanoo ka mid inay ahlu janno tahay ilaahay baana saa u doortay inay diintan xambaaraan heerkooda lama gaari kara laakiin diintan waxaa loogu talagalay ilaa qiyaami saaca inay jirtaa waxay ku xidhan tahay
inaynu sidii ay manhajka ula kulmeen ula kulanno waynu ilaahay rasuulkiisa toos uga qaadano waxaan kale lagu dheehay bariya galbeedba ka yimi ka daadino iyo inaynu ku dhaqanno oo fulino iyo inay sida iyaguba uga xubsiibteen jaahiliyadoodii uga xubsiibano wixii aan diin ahayn oo ilaahay tiisa ku dhaqanno تمرد موسى صافر استينت سكو جبجبين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.